بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسو دوادا Somali Foundation waxay idin la socodsiinay barnaamijka caawi masaakiinta walaalkiina ah Maxamed Darwiish wadani kaasoo ku sugan magaalada Kismaayo. Fartuun Axmed Maxamed waa gabar ciyaan sidaad aragtaanba ku nool magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafadda Faanool Farjana aan idhaahdo gaar ahaan Cali Kulli ku nool. sidaad aragtaanba waa gabar ciyaan labadii waalid ay dhinteen sida ay sheegtay waxay dhashay 5 ilmood laba ka midana way dhinteen laba ka midana waxa haysta ninkii qabay oo ay furay mid ka midana way la nooshahay. Fartuun Axmed Maxamed wadaannimada aad aragtaan ay saaran tahay gaariga dadka cadaamiinta ah waxa u sii dheer waxa la nool walaashay Falastiin taasoo ayada la daala dhacaysa xanuunka qalalka la yiraahdo. gabadha walaasheed Fartuun walaasheed xanuunkaas qalalka haya u sababa marka qaarkood inay ku dhacdo guriga dhexdiisa ama suuqa ayadoo maraysa. marka saddexaad waxa kale oo sababta qalalka ay qabto in cuntada ay karinayso ama dabka ay ku dhex jirto marka qaarkood ay ku dhex dhacdo taasoo sababtay in ay lugteeda midig ka gubato. hadduu Ilaahay yiraahdo Fartuun iyo dhibaatadeeda ayaa idin soo gudbinaya si walaalaha Ilaahay wax u dhiibay ee ihsaanka sameeya Ilaahay ay u baahan tahay caawinteeda marka horeysa marka labaad waxay u baahan tahay innaga muslimiin ah ee Soomaali khaasatan in gabadhaas Fartuun iyo walaasheed aan gacan qaban hadduu Ilaahay yiraahdo marka ugu horeysa Fartuun ku soo dhawaad Somali Foundation ku soo dhawaad. inshallah assalamu alaykum baadin tahay walaalkay aad ii soo dirteen wuu ii caawiye inshallah ajir Allah ka siiyo. aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo curiyaan ah waxaan ku soo daldalay xagar dheer meel la yiraahdo marka hooyaday aabahay waa dhinteen gabadhaas walaashay Falastiin Axmed Maxamed la yiraahdo iyadana waxa waaye qoys waaye dusha iga saaran tahay arahaas oo iyada lugaheega iyo ana curiyaan ah oo meelaha baad iska qaraabta Soomaaliya meel Farjina la yiraahdo ku noolahay masaajidka Cali Kulli agtiisa waaye xaafadda Aarga la yiraahdo. marka walaalow dhibba ay haasto haddaad ii caawin kartiin in ay caawisiinaan rabaa walaalkay ay ii soo dirteen khayr Allah si inagana haddaad wixii ay u caawinaysiin wixii allaala waxa ii garatiin inaad siisiinaan rabaa. biil ma haasto haddaad xitaa bishaan xitaa biil waa la ahay magaaladaas aan iska galaayo muslimkaan dhahaa waxaad iga caawin kartiin ii caawiya inagana in ay caawisiinaan rabaa maadaama aad na soo xasuusateena Ilaahay ajir ha idinka siiyo. walaashayna waxa waay iyadana laba cunug ay haasataa labadeeda cunugna iyo aniga oo hal gabar hadda ila nool labadeeda kalena aabahood baa iga soo reebto waa isoo furo wuxuu aaday xamaraan ugu soo tagay. marka gabadha iyadana way qalashaayo iyada lagu anigana dabka waa ka cabsaday waxaana uga cabsaday iyada way isgaranaysaa ani isma garanaayo kaniini oo qalalka ahna waa cunaa magaciisana waxaa la yiraahdaa faribitol iyo trictol la yiraahdaa. marka maxay aheeday maadaama aad i caawiseen khayr iyo ajir ambaa inii rajeynayaa haddaan su'aal weydiiyo Fartuun ka dhaxgalay xanuunka qalalka ah adiguna miyaa qabtaa? aniga waxa waay iido ku dhacay anoo marka haddana igu soo dhacay anoo kugu dhacay aniguna waa qabtaan xanuunka qalalka marka iida kaniiniyada caadi oo ma isticmaasho haye way iska gogoonaysaa soo way iska xanaaqay way iska gogoonay. waxaan arkay shalayto oo aan kugu arkay adigoo jidka taagan baabuurta markaad inay ku jirta ku dhowdahay jidka waxaad ka soo u aadaa si aad maxay ahayd kaalmeey inaan ma shaqaysan karo maadaama shaqaysan karin kaalmeynta dadku ku kaalmeeyaan ilaa xad intee laga ku tari kartaa yani noloshiina kaafiya mise caawimaad intaas ka sii badan oo u sii baahan tihiin? caawinaad intaas ka sii badan waa u baahanahay maalinta waxaan kasoo helaa 100,000 Soomaali. 100,000 oo dhiganta meeqa dollar? oo $4 $4 صح ilmaha caanahooda meeqa ku filan baa ilmaha caanahooda 12 waa ka sii
لبي توان بس ولبي توان دولار لبي توان دولار كرمتدي عمتدي نلاشي كله marka raashinka ku yaalana waxa waay waa inuu filan tahay wax marka dad qaraabo ah ama dad ehel ah oo caawiya oo maxay qaraabo tihiin oo idin yimaado wax idin keena oo maxay madam soonki hal habar oo hooyadii ilma adeer ay waxay iga soo dirtaa أنا بين أنشيء $50 أو فطرة صوت ارتاح الفطرة صح صوت ارتاح أنت كلا يدين وحد قد هالقا حجام عد قد أنا بين أنشيء أبي اللي غلط قبل ده ولا شيء قبل ده حجر تامرك ويل كده حجر الصوت أفريقيا صح إن واحد سي هتان له لا دم أنا إلى عشان دم الله سيدا الشيء سوفتون وحقرابة عشان سيدهم بانو جبت أدير ما قبنا ويلنا المرة سيدا الشيء سبب الله سبحانه ما يدل سعي سيبا فرتون قرابة إهل كلا وجوه مقالة مجفتو قبيلة يعني هل إذا هين أيضا ما مراسي حوم تركته عن دريميسا فرتون هدي أي لدى هاي ضد ولا على وساعدين لها هاي أيضا لفتي يده وحمالة لكن هذا اللي قبل هيدويان لا هي أمك قدر ربنا يكون علي ها سيدا أي شيء كتير إلها كنا مقالة كسمايو محي هاد UN أيا محي هاد كدوبي برنامجيو إليه وتعاوننا لكن لا هذا من عاونات من سيدا أي شيء كتير حنوضح أنها هي ولا لها مسلمين مالك استوى الدنيا الدافعة كذا الجيل إن أسرع عاويان نمبر كذا إن شاء الله هذول إذا وليس وقول دونا نحكي له جيتا ربنا ورئيسته قبل وراشة ورئيسه فلسطين أحمد هذا الشيء قاعد أحمد فلسطين أحمد فلسطين أحمد نلاش هذا كورن حنون كذا قلب بالقطع هي من كاجي من كاجي مين كفري لا كلا تكتي المها جينا المها بيجونا هي قلب كاس محد باتك هو هيا قلب أنا حد باتك هو بيسكني أجرا هو دعين تو ناقص أنا من قطع أنا يريش يقول قلبته هذه وياه هو دعين هي واحد باتك كاس وقاري ما أجرا قلبته أنا أصلا تسكر ما أنت واحد من قلنا تسكر ما أنت دكتور لا يريش يقول هي تس إيش أعتقد ما أنا تدكتور وقفون هذا صح إيش أعتقد ما أنا تدكتور هذا إلا قاعد شتدكتور تس ضدك تنتس من مدة طبعا بسوق لا عاصد الكيسان أيام حيه فلسطين سوق قاري أنا كوسا سيدا يشاك قلل أي قبته أو زيد أو محيه هذا طبعا يكون أحد على سيدا يشاك لكن هدو لا يرهدو حقوقها هي عاونتينا لا هي وحاوية لكن dadka walaalaha ah waxay u baahan yihiin inay caawiyaan walaalahaas idinka dalbanaya caawisaan bila ilaahay mar labaad hadaa ku soo laabto fartuun waxaad ka dalbanaysaa walaalaha kaa daawanaya dal iyo dibadda kaa daawanaya waxaad ka dalbanaysaa haddiise ay dadka qaarkood ay dalbadaan inay ku yimaadaan oo kale mise ma u baahan tahay adigoo iyo walaashaa ma u baahan tahay caafimaad dibadda laga qaado ama Soomaaliya laftigeeda Muqdisho in cusbitaalada qaarka la geeyo dad walaalaha muxsiniin ay kafaala qaadayaan diyaar ma u tahay أنا كعلنا يسوق كفاله قاضي يعني هذه نقطة عاصمات هنا إقاذة هذا روانا وإقاذة كرنا هاي إقاذة عاصمات كقلل كاسدو إلهي يسوع عاصمات هنا أو إن إمادنا إقاذة هذا روان واروا هنا إقاذة أنا ولا شيء إن شاء الله markaad sidee ay ka soo dhigaanba waa la rabaa waxaad nagala socon doontaan insha allah inta kusoo hagaajin doontaan kaalmadiina nambarka telefoonka aan idiin soo qori doono insha allah haduu leeyahay idiin soo qori doono waxaa kaloo kusoo hagaajin doontaan nagala socon doontaan pageka Somali Foundation waan soo gelin doonaa videogan waad ku mahadsantihiin daawashadiina barnaamijka saa ula socotaan السلام عليكم ورحمة الله